Urta Midkan Gaarka Ayaa Kordhin Karta Cufnaanta Cawl Maskaxda. Waxaa jira siyaabo badan oo lagu xoojiyo awoodda maskaxda, laga bilaabo jimicsiga joogtada ilaa barashada xirfado cusub. Laakiin maxaa ku saabsan kordhinta cabbirka dhabta maskaxdaada? Sida uu sheegay cilmi-baaris cusub, xirashada cadar ama caraf gaar waxay kordhin kartaa cufnaanta cawl maskaxdaada. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Cilmi-baarayaal ka socda jaamacadda Kyoto iyo jaamacadda Tsukuba ee Japan ayaa labo dumar ka codsaday inay dharkooda ku isticmaalaan saliid caraf udgoon oo ubax roose muddo bil halka labo qof oo kale loo hushay inay noqdaan koox tijaabo oo isticmaasha biyo caadi sawirada magnetic resonance imaging ayaa muujiyey in qayb ka mid ka qaybgalayaasha urta roose ay yeesheen kordhin ku timid cufnaanta cawl maskaxda. Inkasta oo kordhinta cabbirka maskaxdu aysan si toos u micnaheedu ahayn in fikirkaagu bato, haddana natiijooyinkani waxay noqon karaan kuwo muhiim u xaaladaha neurodegeneratifka sida waalida dementia. Cilmi-baaristan waa tii ugu horeysay ee muujisa in neefsashada joogtada ee carafku ay beddesho qaab dhismeedka maskaxda, ayay cilmi-baarayaashu ku qoreen maqaalka ay soo saareen. Waxaan hore u aragnay caraf udgoon oo noocan oo hagaajinaya xusuusta iyo shaqada garashada, balse kooxdani waxay doonayeen inay tijaabiyaan waqti dheer si loo ogaado sida kicinta dareenka urta ay u horseedi karto isbeddello muuqda oo ku yimaada qaab dhismeedka maskaxda. Jaantuska maskaxda. Cilmi-baarayaashu waxay isbarbar dhigeen isbeddellada ku dhacay unugyada cawl maskaxda ee meelaha kala duwan. Inkasta oo guud ahaan cufnaanta cawl korodhay, haddana farqiga wuxuu ku kala duwanaa gobollada. Isbeddel yar ayaa ka dhacay amygdala, meesha lagu maamulo shucuurta, iyo orbitofrontal cortex, meesha lagu farsameeyo urta wanaagsan. Laakiin posterior ungulate cortex, oo la xiriirta xusuusta iyo xiriirka, ayaa si weyn ugu kordhay. Daraasado hore ayaa muujiyey in dadka leh dhibaatooyin ku saabsan nidaamka urta, amygdala si toos ula xiriirta urta ay tahay mid aan firfircoonayn, halka posterior ungulate cortex si dadban ula xiriirta urta uu noqdo mid aad u shaqeeya. Maskaxdu waxay isku dayaysaa inay magdhow samayso. Cilmi-baarayaashu waxay soo jeedinayaan in wax la mid ay halkan ka dhacayaan. Amygdala ma aha inay si joogto u soo dirto digniin ku saabsan urta roose, sababtoo mar walba way jirtaa, balse waa inay si joogto u farsamayso oo u kaydiso xusuusta la xidhiidha. Waxay ku lug leedahay xusuusta urta, soo celinta xusuusta urta, iyo habka xusuusta macluumaadka, ayay cilmi-baarayaashu ku qoreen. oo farsamaysa xusuusta urta ayaa aad uga firfircoonaatay amygdala, taas oo ka mas-uul dareemida urta. Si kastaba ha ahaatee, way adag tahay in si sax loo go'aamiyo waxa keenaya kordhinta cufnaanta cawl. Suurtagal kale oo ay soo jeediyeen cilmi-baarayaashu waa in urta roose ay maskaxdu u calaamadiso sidii mid aan fiicnayn, taas oo keenta in nidaamka shucuurta uu shaqo badan qabto, bixana uu weynaado. Cilmi-baarayaashu waxay rajaynayaan in natiijooyinkani ay faa'iido u yeeshaan horumarinta daaweynta aromatherapy ee kor u qaada caafimaadka maskaxda iyo dabacsanaanta maskaxda brain plasticity. Ku darista caraf dharka waa la mid sida cadarka ama aftershafika, waa hab raqiis fudud oo laga yaabo inuu faa'iido u yeesho caafimaadka maskaxdaada. Mustaqbalka, iyadoo la samaynayo tijaabooyin dheeraad oo ku saabsan carafyo kala duwan iyo kooxo dad oo waaweyn, waxaa halkan lagu ogaaday waxaa laga yaabaa in loo adeegsado yaraynta khatarta waalida dementia. Waxaa la og yahay inuu yaraado dadka qaba cudurka Alzheimer's, sidaas darteed ku hayntiisa firfircoon iyadoo la adeegsanayo caraf udgoon waxay noqon kartaa hab lagu ilaalinayo qaybtaan maskaxda oo shaqaynaysa si wanaagsan. Sidaas awgeed, natiijada daraasadan waxay soo jeedinaysaa in neefsashada joogtada ee saliida udgoon ee roose ay ka hortagi karto qalafsanaanta maskaxda islamarkaana ka hortagi karto waalida, ayay cilmi-baarayaashu sharaxeen. Cilmi-baaristu waxaa lagu daabacay Brain Research Bulletin